barnaamijkanagii noo sii socday baro oo ku barbaari dabcan saad ka aragtaan magaca baro ku barbaari dee barnaamij taxan u ahaa inkastoo marar badan aan khadka ka baxnay oo mashquulka wadanka qurbaha lagu jiray waxaasoo dhan ayna noo suurtagelin inaan kilibyada iyo barnaamijyada taxan aan ka dhigno laakiin markaan bilaabayno barnaamijkan sanadka hore isku dayna inaan u sheegnay dadka maadaama sadaqa ay tahay waqtiganaga iyo cilmiganaga wixii aan awood u leeyahay inaan bulshada islaamka iyo soomaalida la qaybsano inaan barnaamijku uu noqon doono waqtigeena keliya inaan sameyn karno dee waqtigaan shaqo ku maqanay ama safar ku maqanay dee of course ma sameyn kartid mar walba laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah inaan isku dayno sida ugu macquulsan oo waqtiyada ugu badan inaan barnaamijka baro oo ku barbaari inaan taxaana ka dhigi doono insha allah sida ugu macquulsan dabcan saad barnaamijka magaciisa ka aragtaan dee baro ku barbaari macnuhu barnaamijku wuxuu ku socdaa waalidiinta oo macnaheedu tahay inay bartaan qaabka loo barbaariyo caruurta waxaa laga yaabaa in dad badan horeyna waan sheegnay inay dadku isleeyihiin dabcan xilligan anigu si loo barbaariyo caruurta ma baranayno laakiin dabcan waxaan ka wadnaa marka qurbaha la joogo iyo dalkanaga way kala duwan yihiin qaabta barbaarinta caruurta loo koriyo waxaan rabnaa marka inaan isbarbardhigno wax yar kadibna barnaamijka laba qaybood noqon doona barnaamij yar oo rabna inaan tusaale kow laba saddex usoo qaadano faraqa u dhexeeya barbaarinta wadankeeni iyo wadamada reer galbeedka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhwaani saan idiin sheegnay qaybtii labaad waatana halka waxaad ku aragtaan laba sawir saddex gees gacantaada bidix iyo saddex gees halkaana saddex geeskan waxaa ku qoran wadamada reer galbeedka halkaas waxaad arkaysaan oo kale halkan waa da-da caruurta 1 sano ilaa 18 sano halkan waxaa ku arkaysaan Soomaaliya saddex gees waxaan arkaysaa inay meesha kore salkeedii u weyn tahay oo hoos ay usoo yaraanayso halkan ay salka u weyn tahay oo markii kor aadaysay ay usii yaraanayso halkan waxay ku kala tusaysaa labadan saddex agal waqtiga la geliyo ilmaha marka la korinayo yani farqiga u dhexeeya koriinka caruurta saddex agashada marka saddex agaladan waxay ka tarjumaanayaan waqtiga la geliyo caruurta wadamada reer galbeedka marka la joogo iyo wadanka Soomaaliya marka la joogo waxaan ku bilaabaynaa wadamada reer galbeedka marka la joogo saarkaysa cunugii 1 sano jira halkan 1 sano marka uu joogo ilmaha inta badan 1 sano iyo bar waxaa la geeyaa ilmaha baanahaga ama xanaanada caruurta la geeyaa halkaas waxaa lagu bilaabaa marka in waqti badan la geliyo oo 1 sano 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano ilmaha waxay joogaan xanaanadana waxaa jooga ama baanahaga la yiraahdo dad pedagogiska oo kusoo takhasusay korinta caruurta kusoo takhasusay maskaxiyan iyo jir ahaanba يعني social ahaanba qayb walba cunuga inaga dhiso koriinka la korinayana yani la socota da-diisa iyo biseelka maskaxdiisa waxaa arkaysaa marka 1 sano cunuga marka la gaaro oo baanhagaha la geeyo mar alle markuu cunuga 2 sano meelaha ay 3 sano gaaro cunugii afka u barto kelmadaha ugu horeeya cunuga baanhaga aad waxa ugu horeeya ijloof yani sharci maaha taa waxay ku cadeynaysaa marka ilmaha 1 sano bar markay gaaraanba in lagu bilaabo in la tuso waxa saxda iyo waxa khaldan halka waxaa arkaysa markay baanhagaha ilmaha subaxii tagaan waxay galaan samling ay galaan 3 saac ama 4 saac subaxnimo samlinkaas ay galaan ilmaha halkaas waxay ka bartaan kow in cunugiiba uu mar hadli karo oo wax iska garab hadalla inayna jirin waxay baanhagay xanaanada ku bartaan wada shaqeynta caruurta waxay ilmaha ku bartaan isu naxariisashada waxay halkaas ku bartaan xalinta khilaafaadka iyadoo aan la dagaalin waxay ku bartaan wixii khaldan oo ilmaha ay arkaan inay sheegaan oo qofku inay meesha joogo u sheegaan waxay bartaan inay qofku weyn ixtiraamaan
waxaa la baraa halkaas ina eryo xun aan la isticmaali karin oo stiigor iyo eryo xun aan la isticmaali karin yaa ilmaha la baraa. Waxaa kaloo la baraa ilmaha inay fadhiisan karaan waqtiyadii cuntada cunayaan ilaa cuntada ay ka dhameynayaan inay cuntada inay fadhin karaan. waxaa kaloo la baraa cuntada caafimaadka qabto iyo cuntadan caafimaadka qabin oo dee sida sokorta iyo shukulaatada iyo nacnac iyo waxaas iyo keega inay yihiin cuntooyinka cudurada wata in ilmaha ayna cunin yaa baanhaagaha lagu baraa. dee arkaysa marka halkan waxaa baanhaagaha iyo iskuul gurigan waxaa ka dhexeeya wada shaqeyn fara badan ka dhexeysa. waxa halkaasoo baanhaagaha ilmaha lagu soo baro halkan guriga waa dabcan waa sharci isku mid ah ama isu dhow. sababta dadkan Norwegianka ama wadanka qurbaha jooga gaar ahaan wadanka Norway inta badan waxay soo mareen xanaanadii soo mareen sharciyada marka baanhaagaha ilmaha lagu soo baro ayagana waa mid hore ay ugu soo barbaareen ama ay soo mareen waaye. marka inta badan farq weyn u dhaxeeya male. marka cunuga waxaa arkaysaa xaalad degan cunuga ku jira. haddii marka baanhaagaha lagu soo bari lahaa xanaanada sharci lagu soo bari lahaa guriga markuu imaadana mid ka gadaysan cunuga jahwareer uu geli lahaa. laakiin halkan marka waxaa arkaysaa jawi degan cunuga ku jira wada shaqeyn fara badan way ka shaqeysaa way ka jirtaa. wixii markaad adiga geynaysa daa cunuga warbixin siinaya baanhaagaha galabtii markaad kasoo qaadanaysana baanhaagaha warbixin ku siinayo. cunuga markuu guriga imaado wareysi badana waalid kala yeelana wixii halkaas ka dhacay. marka cunuga waxaa arkaysaa maskixiin iyo jir ahaanba in la korinayo ilaa 5 sano markuu gaaro. 6 sano markuu gaaro cunuga wuxuu bilaabaa iskuul xanaanada dhexda ka bixisa. marka waxaa bilaabanaya wada shaqeyntii guriga iyo iskuulka. kaliya halkan waxaa kusoo kordhaya cunuga inuu fadhiisan karo 1 saac oo xiisada dee uu fadhiisan karo jadwalka iskuulka iyo maadaama kusoo kordhaysa. iskuulka markuu cunuga ka imaado sida meeshan oo kale dee ilmaha inta badan sida baanhaagaha oo kale lama geeyo oo lagama soo qaado hadduu qofka meel dheer deganin. ilmaha inta badan waa la geeyaa iskuulka ayaa tagay inta badan macalinka ma arkaysid. saa daraadeed marka iskuulka iyo guriga laakiin wada shaqeyn fara badan ka dhexeysa inta badan sanadkii 2 jeer ee waalidiinta iyo iskuulka kulmaan. inta ka horeysana jadwalka yaa warbixinta lagu soo qoray iskuulka iyo waalidka maartay ku xiriirayaan. cunuga 6 sano markuu gaaro waa cunug dhisan inta badan oo inuu halin galaaska la socon karo 1 saac fadhiisan karo ilmaha la shaqeyn karo eri xun una dhihi karin ilmaha una bullying ku sameyn karin ama mobbing ku sameyn karin. waxaa arkaysaa marka ilmihii iskuulka hadday tahay xanaanada hadday tahay guriga hadday tahay ilmaha waqti badan la gelinaya. cunugadan ma uu sii weynaado waxaa arkaysaa marka asaa mas-uuliyadiisii qaadanaya. marka waqti badan lama sii gelina waqti badan uma baahna. 18 markuu gaarno cunuga ka guurayaaba guriga because inkastoo 18 markuu gaaro weli cunug yar yahay scientifically ilaa 21 sano maskaxda ma dhamaystirno dhisitaankii iyo ma dhamaystirna. laakiin 80% ilaa 90 markuu uu guuro waa cunug jadwalaysan oo jadwal haysto wax ay bulshada ka sugaysiiyo waxa asaga ay bulshada ka sugaysiiyo waxa uu asaga ka sugayo kulligood ay u kala caddahay. halka markaa imaatid Soomaaliya si halkan dee system dhammaystiran ma laha oo xanaanad ma jirto. waxaa arkaysaa halkan cunuga 1 sano jira ilaa 5 sano laga gaaray waa iska guri joog. dee sharci badan iyo dad oo pedagogiska oo ilmaha kori oo takhasusna gacanta kuma dhigayaan. markuu ugu horeyso cunuga waxa laga xanaanada inuu halkaas ku bilaabo. cunuga iska fresh oo sharci loo dhigano wax ka xalaal iyo wax ka xaaraan min ay jirin oo iska daysana oo halkaas iskuulka ka bilaabay. marka mid kale cunuga markuu 1 sano jiro 2 sano jiro 3 sano jiro 4 sano jiro waalidku waxay arkaan cunug yar oo sabi ah oo lala hadlin lama sheekaysto waxba lama weydiiyo waxba laguma darsado cunto noocay rabaa la iska siiyaa dhar noocay rabaa loo xiraa meesha rabaa loo kaxeeyaa waa la isaga labisi waa la iska garabka la iska qaban waa la iska keeni. halkan cunuga halkaasna markaad labisi waa inaad u sheegaysid inaad labisaysid meesha u socotay. xitaa haddaad suuliga geynayso waa inaad u sheegtay inaad suuliga geynaysid. cunto markaad siinayso waa inaad sheegto waqtiga cuntada la gaaray saacadda waa inaad sheegtay. hataa 2 sano hadduu jiro xitaa saacad wax la una fahmayna kor iyo hoos waa u sheegaysaa in waqtiga cuntada la gaaray qadada la gaaray 5 saac la gaaray hadda la soo cunteynaya.
halkan laka cidna wax u sheegay maysa maaragtaa iskuulka cunuga iska bilaabi cunuga iskuulku iskaadi uu iska imaani dabagal badan laguma sameyna iskuulka iyo gurigan wada shaqeyn fara badan kama dhexeyso kulamo fara badan oo disi wadankan 2 sano 2 jeer sanadkii ay kulmaan ama jadwalka ay ku xiriiraan ma jiro cunugii wax ma soo bartay bullying ma lagu soo sameeyaa dhibaatooyin ma kala kulmay homework iyo cashirkii ma ku adag yahay follow badan laguma sameeyna halkan wada shaqeyn badan iyo iskuulkan kama dhexeyso wuxuu rabo maanta iskuulka ka soo qasi wuxuu rabo guriga ka soo qasi halkan marka xiriir badan kama dhexeeyo marka halkan laakiin haddii iskuulka wax ka soo qaso guriga markiiba ogaanay hadduu guriga wax ka qaso wax kala kulmo markiiba iskuulka ogaanay ama xanaanadii ogaanaysaa marka waxaa arkaysaa meesha cunugeena waqti badan la gelinaynin 15 14 markuu halkaa gaaro cunugii maadadii ku adkaato iskuulkii bullying lagu soo sameeyo cunugii uu koro homekiisa isbedelo uu cunugii aabihii hooyo saaxiib la yeelan kari waayo ayagii ay dhegeysan kari waayaan su-aalo fara badan iyo waxyaalo badan qalbigiisa ka guuxayo cid u jawaabtana uu waayo yacni nolosha iskuulkan way ku adkaanaysaa gurigiina dee cid uu ku nafisa ma haysto marka waxay noqonaysaa cunugii inuu saaxiibo fara badan yeesho iskuulkii ka dhaco jaad barto sigaad barto xashiish barto hooyadii aabihiis oo marka uu dhaqankiisa dabeecadiisa isbedesho iskuuladii u geeyo habeenkii dhan uu maqan yahay maalintii dhan uu jiifo marna la fiijiyo guriga laga fiijiyo marna iskuulka loo fiijiyo cunugii aan wareysi badan lala yeelanin halkaa marka uu joogo waalidka marka waa ku baryayaa marka waxay dareemayaan cunugii inuu waxay arkayaan marka inuu cunugii jaadkii bartay sigaarkii bartay maybe darooga bartay saaxiibo fara badan yeeshay maadadii ku adkaatay iskuulkii ka saaqiday halkaasi marka hoogaya baayida waalidka ka bilaabanaysa halkaas waa ugu baryaya laakiin cunug 15 sano jiro maxaa laga qaban karaa wax laga qaban karaa iska yartahay halkan waxaa arkaysa markuu yaryahay waqti badan la gelinaya halkan waqti badan lama gelinayo markuu 15 gaara marka la isku day cunugii in la saxo 15 sano ma saxi kartid 16 sano ma saxi kartid cunugii waa adkaaday marka dee waa deesan wallaha ku daayo waay halkaas marka habaar iyo qayli iyo la bilaabi hoogaya baay marna guriga laga fiijinay marna lagu soo celin marna iskuulka loo fiijinay marna ka saaqidi wabillahi tawfiiq cunugii de markuu 18 markuu gaaro cunug isku filan ba maaha maadahan iskuma filna akhlaaq ahaan lama korini jaadkii uu bartay sigaarkii uu kartay waxaas waalidiin uu noqday de xaaladii uu la kulmay daraadeed halkan laakiin cunugii waxaa arkaysaa waqti badan la gelinayaa 18 markuu gaaro cunugii cunug jadwaleysanoo habaysan uu qaran waana guuraya marka ilmaha halkaas saasay ku kala duwan yihiin korinta iyo faraqa u dhexeeya korinta wadamada reer galbeedka markaan joogno iyo ka markaan joogno Soomaaliya laakiin markaan halka imaan waxaa loo baahan yahay inaan simulation sameyno oo qaabka wadankan loo koriyo kale inaan ilmihii u korinaa loo baahan yahay oo de sidii Soomaaliya aan u dhaqmin ilaa hadda dad badan baa ilmihii aan la sheekaysanin la hadlin taasoo wadamada reer galbeedka inta badan dhibaatooyin kala kulano iyo xabsida uga buuxa marka akhwaan insha Allah barashadana way sii socon doontaa haddii ilaahay waqtiyada fasaxyada iyo jan sanadka soo socda caadi baan u bilaabi doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.